جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صحابيgaas cabdiraxmaan ibni sakhr addowsi radia allahu tacaala canh wuxuu rasuulka ka wariyey calayhi salaatu wasalaam in rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa ataakum man taradawna khuluqahu wa diinahu fazawijuuh ilaa takun fitnatun wafasaadun cariid. wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam, goorta uu idin yimaado mid aad ka raali tihiin dhaqankiisa iyo diintiisaba aad ka raali tihiin oo guuruu idinka soo doono fazawijuuh u guuriya, ilaa takun haddaydan sidaa yeelin oo kii aad ku kalsoonaydeen diintiisa iyo dhaqankiisa aada u guurin weydaan, takun fitnatun wa fasaadun cariid. waxaa ahaanayoo la helayaayoo jiraya fitno iyo fasaad muuqda oo fidsan oo baahsan ayaa dhacaya. saxaabadu way weydiiyeen sida riwaayada kale ku sugan mursalka abu xaatim almusani, waxay weydiiyeen rasuulkii ilaahayow hadduu sidaa iyo sidaa yahay lafteeda miyaanu siinaa haddaanu labadaa keliya kaga raalli noqonno? oo macnaheedu ay tahay haddii dhaqankiisa iyo diintiisu ay fiican tahay laakiin uu faqiir yahay amaba uu yahay reeraha waaweyn aanu ka dhalan waxyaabaha laysku qadariyo, haddii aanu sidaa iyo sidaaba ahayn ma labadaa keliyaanu ka eegnaa bay yidhaahdeen saxaabadu. nebigu sala allahu calayhi wacala alihi wasalam 3 jeer buu ku celiyey. mar walba waxaa nebigu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam, hadduu idin yimaado midaad ka raali tihiin dhaqankiisa iyo diintiisa. halkaa waxay nooga cad markaa halbeega lagu dooranayo gabadha la guursanayo oo ninka looga baahan yahay ninka la siinayo gabadh la siinayo ee lagu darayo loo guurinayo, halbeega lagu qiyaasayo rasuulku sala allahu calayhi wacala alihi wasalam wuxuu ku cabiray inay tahay dhaqanka iyo diinta. maxaa dhaqanka iyo diinta loo dooray? noloshan la wadaagaya labada qof ee isguursanaya ay wadaagayaan ma aha nolol maalin iyo laba, waa nolol dheer oo in badan soconaysa. haddaba qofku wuxuu u baahan yahay gurigaasi si uu u jiro oo u dhisnaado inuu yahay qofkani qof mas-uuliyadda qaadi karaya, xuquuqdana gudan karaya. xuquuq baa saaran, xaaskan uu guursaday xuquuq baa ka saaran, qaraabadeedii iyo dadkeedii xuquuq baa ka saaran, ubadka iman doona xuquuq baa ka saaran, xuquuqo badan baa saaran. labada shay ee guur sidiisaba guri looga baahan yahay si uu u sii jiro waa in wanaag lagu wada noolaado iyo dhaqan fiican iyo in xuquuqda laysu gudo. marka dabeecadda wanaagsani waxay keensanaysaa wada noolaansho wanaagsan. diintuna waxay keensanaysaa adaa'ul xuquuq, xuquuqdii qofkani saarayd inuu guto oo qofkii diinta garanaya ku camal falayay ee diinta lahaa kaasaa la yidhahdaa waa qof diin leh. qofkii ku camal falayay ee ilaahay subxaana wa tacaala iyo sharcigiisa u hoggaansanaa kaas ayaa diin leh. marka xadiisku wuxuu sheegay ninka soo doona gabadh soo doona si uu u guursado halbeega u yaalla ee lagu qiyaasayo si gurigaasi uu u sii jiro waa dhaqan wanaagsan iyo diin ayaa halbeegu ah. dhinacii kale aynu eegno xagga dumarka nebiga sala allahu calayhi wacala alihi wasalam, dumarka laftooda waxa lagu dooranayo rasuulku waa sheegay calayhi salaatu wasalaam. xadiiska abi hurayra radia allahu tacaala canhu iyo abu saciid alkhudri radia allahu tacaala canhuma ay warinayaan ee rasuulka ay ka warinayaan sala allahu calayhi wasalam, nebigu wuxuu leeyahay tunkaxu lmar'a liarbac. gabadha waxaa loo guursadaa ama lagu doortaa 4 baa lagu doortaa. riwaayadka qaarkood 3 baa ku soo arooray. 3 khasladood ama 3 arrimood ayaa dadka ku kalifa gabadhan inay doortaan, inay xaas u noqoto ama nolosha ay la wadaagto. ka ugu horeeya waa limaaliha, maalkeeda.
riwaayadka qaarkood way istaba marinayaan ka horeynaya laakiin limaaliha xoolaha ay haysato nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu ka waramayaa dadku waxay wax ku doortaan ee maaha macnaheedu in layna leeyahay maal ku doorta wax ee dhaqanka iyo doonista dadku waxay wax ku doortaan baa nabigu ka waramaya kaleey salaatu wasalaam xoolaheeda lagu doortaa wali jamaaliha quruxdeeda iyo dheeheeda lagu doortaa wali xasabiha sharafta iyo reerka ay ka soo jeedaan ay ka soo jeedo ama nasabka ay ka soo jeedo ayaa lagu doortaa saddexdaasi waa saddexda dadku wax ku doortaan nabigu kaleey salaatu wasalaam mid afraad buu raaciyay oo ah walidiiniha diinteedana waa lagu doortaa riwaayada kale waxay tilmaamaysaa riwaayatu Abi Saciid al-Khudri markuu nabigu inta yiri ayaa nabigu wuxuu leeyahay فخذ ذات الدين والخلق تربت يمينك لكن حديث كصحيحين كسو wuxuu tilmaamayaa afartaas lagu doortaa fadfar بذات الدين تربت يداك waxaad hadaba ku guuleysataa oo aad ku dadaashaa oo aad ku guuleysataa tadiinta la inaad qaadato oo aad hesho markaas nabigu wuxuu sii raaciyay taribat yadaak oo ah hadal ay carabtu isticmaali jireeno dhaahirkiisa guudi waa habaar oo qofkii la habaarayo la leeyahay faqriha kugu dhaco laakiin ugama jeedaane waxay uga jeedaan boorin bay uga jeedaan marka nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku boorinayaa in la eego tadiinta la eego waxyaabaha kale aan la eegin riwaayada kale waxay tilmaamaysaa lafdi bay ku dartay oo waxay leedahay فخذ ذات الدين والخلق waxaad qaadataa tii diinta iyo dhaqanka u saaxiibka ahayd marka sidii ragga marka la siinayo hablahaba loo eegayay inay diin iyo dhaqan fiican leeyihiin ayaad arkaysaa nabigu sallallahu alayhi wa alihi wasallam dumarka laftooda marka la dooranayo waxa la dhinaca laga eegayay halbeegu inuu yahay diin iyo dhaqan isku soo xooriyo doorista ama doorashada lamaanaha nolosha wadaagaya waxay isku dooranayaan waxa aasaas u ah oo halbeeg u ah labada qodob oo ah diin iyo dhaqan dhaqanku wuxuu daweynayaa ama dhaqanka wanaagsan wuxuu daweynayaa wada noolaanshuhu inuu daa'imo oo wada noolaansho ixtiraam isu dulqaadasho is adeecid isu dhaganuglaan waxyaabahaas oo dhan buu keensanaya oo noloshiiba buu hagaajinaya dhaqanka wanaagsan diintuna waxay hagaajinaysaa xuquuqdii qofkan saarayd ayuu gudanaya waxaan ognahay ragga iyo dumarka mid walba waxa saaran xuquuq waxa weeyaan ayaa mid si gaar ah u saaran iyo mid mutabaadalo labadu mid waliba ka kale si siman ay u saaran tahay inuu guto marka walaalayaal waxaan naftayda iyo cida codkaygu gaadhayaba aan la wadaagayaa ama aan ku boorinayaa in doorashada guurku uu noqdo mid ku salaysan labada qodob sababtoo ah waxa kale ama dib bay keenaan oo maalku dib buu keenaaba qabiilka iyo reerka iyo ka soo jeedaana dib buu keenaa laakiin diinta iyo dhaqanku wanaag mooye wax kale ma keenaan ilaahay subxaanahu wa tacaala doorashada haynoo hagaajiyo guryahana haynoo barakeeyo wallahu tacaala aclam وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين